Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal kusoo dhowaada channelkan Motek. Channelkan waa channel cusub ood kala soconaysaan daawade wax kastoo ku saabsan taleefankaaga. Hadday tahay waxyaabaha qaar oo aanad hore uga ogeyn taleefankaaga, dhanka applicationada iyo weliba gameska taleefankaaga ugu fiican eed ku ciyaari kartid. Haddaba daawade, hadday ku cajab geliyaan fiidiyoyadan soo dhigaya, daawad waxaan kaa codsanaya adoo mahadsan inaad subscribe saarto. Waa mahadsantay daawade. WhatsApp-ka lagu tiriyaa daawadayaal applicationada ugu isticmaalka badan adduunka. Haddaba maanta fiidiyogan waxaan kuugu soo bandhigayaa 5 waxyaabood oo laga yaabo inaanad ka aqoon applicationkaas WhatsApp oo laakiin taleefankaaga kaliya ku samayn kartid. Haddaba daawada fiidiyogan maanta hadduu ku cajab geliyay kana faa'iido waxaan kaa codsanayaa inaad la sii wadaagtid asxaabtaada siina share garaysid si ay iyaguna u ogaadaan. Waa mahadsantay daawade. Haddaba daawadayaal ta koowaad ayaa waxay tahay inaad statuskaaga aad soo dhigtid aad u ogolaan kartid inaad daawan karaan dad gaari qaar kalena ka diidi kartid. Talaabooyinkaad raacaysa ayaa waxay yihiin daawadayaal. Waxaad tegaysaa statuska, kadibna waxaad tegaysaa saddexda calaamadood xagga sare, kadibna waxaad ku dhufanaysaa status privacy. Dadkana waxaa kuu soo baxaya saddexda shayna waxaad ku dhufanaysaa ta ugu hooseysa oo only share with. Marka xaggan waxaa uga ogolaan kartaa dadka rabtid, waxaanad u diidi kartaa dadka rabtid inay arkaan. Ma ku dhibay storage iyo masaaxadda uu ka haysta message-da WhatsApp-ku. Fiidiyogan waxaan kugu tusayaa waa shaygan labaad habka aad u arki lahayd intay ka haystaan message-da qofka aad u dirtaa iyo isaad iskaga dhigin lahayd labadaba. Talaabooyinka soo socda daawada raaca. Waxaad tegaysaa settingska WhatsApp-ka adigoo ku dhufanaya data and usage storage, kadibna waxaad ku dhufanaysaa storage usage. Xaggan waxaad ka arkaysaa dadka iyo weliba inta ay ka isticmaaleen message-yadooda. Qofka aad rabtid inaad delete ku dhufanaysaa si aad iskaga deleted message-yadiisa. Waad arkaysaa xagga hoose clear baad ku dhufanaysaa, kadibna waxaad ku dhufanaysaa clear all messages si ay kaaga delete. Tallaabada saddexaad ee raba daawadayaal inaan idinla wadaago ayaa waxay tahay daawadayaal inaad qofka u samayn kartid icon ama shortcut yar taleefankaaga adigoo keenaya shaashada taleefankaaga si aad si degdeg ah ama si dhaqso ugu gashid message-kiisa ama wada sheekaysigiisa. Tallaabooyinkaad maraysidna waa kuwa aad u fudud. Ila soco daawade. Qofka aad rabtid daawada inaad shortcut ku samayso ayaad gacanta ku yar haynaysaa, kadibna saddexda calaamadood ku dhufanaysaa, kadibna waxaad ku dhufanaysaa add to shortcut, kadibna okay waad odhanaysaa. Markan dib baad uga baxaysaa waxaad arkaysaa inuu kuu soo dhigayo shaashada taleefankaaga. Halkana si degdeg aad uga geli kartaa si aad qofka ula sheekaysatid. Message-yada qaar dadka aad u dirtaa ma yihiin qaar xasaasi ah oo aanad doonayn inaad qofna kaa maqlin kaana arag. Haddaba daawada tallaabadan afraad kuu soo dhigaya waxa weeye tallaabadii aad ku qarsan lahayd message-yada jecesha inaan laga maqlin lagana arkin. Haddaba markan tallaabooyinkan raacaya just kaliya raaca. Gacanta ayaad ku yarhaynaysaa qofka aad doonayso inaad qarsatid. Kadib waxaa kuu soo baxaya optionka ka labaad ee midig ayaad ku dhufanaysaa. Qofkii wuu qarsoomaya, qofka aad doonaysid dib u heshid archive-kaad ku dul dhufanaysaa. Hadan waxaa kuu soo baxaya inuu qofkii qarsoon yahay. Waad la sheekaysan kartaa isagoo qarsoon. Haddaad dib doonaysid inaad u soo saaratidna isaga ayaad gacanta ku haynaysaa, archive-kaad ku dhufanaysaa sidii kii hore oo kale. Waad ku mahadsantay daawashada fiidiyoga. Hadduu ku cajab geliyo fadlan subscribe saar channelka, fiidiyogana like saar, siina share kale channelka si aad igu dhiirigelisaa inaan soo gudbiyo fiidiyo kuwan lamid ah mustaqbalka insha Allah taala.